waa maalintii u dambeysay ololaha xisbiga talada dalka ayaa kulmiyay uu ku soo bandhigaya khayraadda weyn ee magaalada Burco taasoo loogu diyaar garoobayay doorashada ka dhici doonta Soomaaliland 13 bisha May musharaxiinta Cabdi Ibraahim Jaaqur iyo sidoo kale Maxamed Balaaki ayaa taageerayaashooda si weyn uga dhex muuqdeen saaka ololaha khayraadda ee magaalada Burco wadooyinka halbowlaha ee gobolka Togdheer socod luga ay ku soo mareen markay socodkooda soo dhameystaan waxay taageerayaasha iyo musharaxiintu kula hadleen taageerayaashoodii garoonka Bayl ee magaalada Burco halkaas oo musharaxiintu kaga codsadeen in maalinta 13 May ay codkooda ugu hiiliyaan si ay wax ugu qabtaan bulshada gobolka Togdheer si aad guula buuxiyeen nimca iyo baraariyo gaadhaan barwaaqada aan idin bayaashay haw eegin beel iyo bahdareerihiin xildhibaan Balaaki iyo Jaaqur ku beero bulshooysi codkaaga astaantooda beegsada warmeen ilaawina gudinta ween ilaawina 204 inta shalbadan maaha halkaas ila maanta taagnay oo ahayd maalintii 27 May ahayd maalintii madaxweynuhu inoo marayay gobolkeennii maalintaas oo ahayd maalintii lagu soo gulaanadayay muxuu ahaa kaambeykii dheeraa isu soo baxyadii xisbiga kulmiye sida hagarmaanta ay u soo jeedeen xalay sida saaka noo garab taagnaydeen ilaa iyo maanta madaxda u taagantihiin waxay noqon doontaa bar ku taalla haddii la yidhaahdo wadnahayaga iyo qalbigaygaana weligay ilaawin waxay noo muujiseen inaanu nahay dad shacab leh oo la garab taagan yahay haween dhalinyaro odayaal waayeel aqoon-yahan cuqaal salaadiin aad baanu idinka mahadnaqaynaa waxay noo hadhay maalintii 13 May sidaa isu taagteen sidaa hayganka u tihiin sidaa isu wada degteen sidaa loo garab taagan tihiin magac iyo maamuus ayaa idinku jira idinka yaa annagaba inaynu meeshii aynu dhaqaaqnaynu ka soo baxno ka muuqanno kuwa ugu codka badan la noqonno insha allah codkiinu yuu baaqanin qofowna ha hadhin qofkii meel ku jira qof waliba wuxuu mas-uul ka yahay dadka wixii uu ku xidhan yahay inuu maalintaa codka keeno waxaa ballanteennu waxa weeye 13 May insha allahu soo sidaa ma aha waxaynu ka mid nahay kuraasida eeda insha allahu in la filayo inay gobolka Togdheer ka soo baxaan allahu akbar Soomaaliland ha noolaato kulmiye ha noolaado kulmiye ha guulaysto waa maalin aad u weyn oo qiimo iyo qaayo kule ummadda reer Soomaaliland waa maalinteenu magaalada soo galnay ee mujaahidiinteennii sharafta lahaa ee uu maanta ka nool yahay Axmed Mire iyo Maxamed Kaahin ay ku dhaawacmeen waa maalin weyn waa maalin aad u qiimo badan waa inaanu maalinta ilaawinaanu xasuusanaa waa inaynu xasuusanaa mujaahidiinteennii horta ilaaba mahadloo waa idin mahad celinaynaa haddaydan idinka taageeradiina maalin aydan muujin taageeradiina aydan nala garab istaagin maynu soo gaarnin maanta meeshaanu taagannahay aniga xildhibaan Cabdi Ibraahim Jaaqur iminka saadaashu waxaynu leeyihiin number A baa tihiin ilaahay ka dhigo ilaahay number A-da naloo saadilay Allah ka dhigo saadaashaasina waxay ku timid idinkaydu ku timid taageerada noo muujiseen sida isku abaabusheen shaqooyinka nala shaqayseen garabka nala garab istaagteen intaasay ku timid 21 May ha ilaawina maalinta 13 ha ilaawina walaalayaal waxaanu idin leenahay saddex casho noo harsan war maalinta xuduuddaana tufteen maanta laba xuduudda waxaydan kaloo ilaaweynin hadda nambarka qalbiga ku qorta 204 ha ilaawina 204 ha ilaawina gudintana ha ilaawina labada qalbiga ku xirta Cabdi Qani Baafo Star TV magaalada Burco.